shirkan ay si wada jira u soo qaban qaabiyeen ururada Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay magaalada Rotterdam ee wadanka Netherland iyo sidoo kale qaar ka mid ah eheladii dadkii iyagu dhawaan loo xirxiray falal tuhun argagixisnimo la xiriira oo ku wajahnaa in gudaha wadanka Netherland ay ka fulinayaan dad Soomaaliyeed laakiin markii dambe noqotay mid aan dhaboobin badi ayaa waxa ay ka dhacay magaalada Rotterdam ee wadanka Netherland waxaana shirkaasi intii uu socday ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo kala harin kuwaas oo muujinaya dareenkooda ku aadan sida uga dilgilanayaan arintaasi inay waxba ka jireen iyadoo dhinaca kalena goobtaasi ay joogeen warbaahinta wadanka Netherland oo iyagu si weyn u xiiseynaya arintaasi inay wax badan ka ogaadaan shirka ayaa intii uu socday waxa lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee aragtidooda ku aadan inay arintaasi deedafeeyaan qaar ka mid ah dadkii la xirxiray dhawaan imika la soo daayo goobtaasi aan kula kulannay ayaa wax ka weydiiyay waxa lagu soo eedeeyay sida loola dhaqmay waxa lagu yiri waxa terroristad caawisa waxaad sameeynayeen qarxin ayaad abaabuleysay adigaana u weynaa intaas lagu soo eedeeyay waxaan ku yiri waxaas aad sheegaysaan waxaan ka ogaana male mana la socdo waxa aad sheegaysaan waraysigoodan hore u sii wateen xagee warka ka keenay iima sheegin qiim diinisku inay wax sheegaan xaq uma laha sida runtii aan wanaagsaneyn xoogaadu waana la yeelay oo maartay qurux badnayn oo aan kulli wax hadda artay macaan aan ahayn laga sheekeyn karin يعني دارك دارنا لكساري حتى كستومين كقبني كل بقى أنت هبو نركب حي نلوجلي وحير أو بلاستيك ير أو باع أو كلاتا قبل ويشري مركب وحبس ولا نمودين عندها نقل حري باور كنا نقل دقن أفر باور نكست باور على ساعة 6 قفان هين حفيزك بوليسك مركين الجيران وحنا نقول تورستين أنا يعني أو تورست فور براد إن ديار جروبيسين أو حال نوعس أو مل آخر حربتين أهو ببلاهستان رجال رجال لو قبتي إنه حلول اللي يهم فلك أرجع السينما ده إنك سلبوا وعيه بنان كتشوجا عرين تاسي أيام مركل ويدي وحسابات توقع إيه ما تبنان كتشوجان مركل وحنا ويستن تون شكان تورستا مركل ضمن واحدهن الباب قال اسكفري غرغا عادي كرتا wax kale la marin loo malmood amal yeesteen markii ogaadeen in waxay weyn waxay yiraahdeen waa kaasa ana safaardeeda ii wacaanay safaardeeda markii ii timid oo yiraahdeen ilaa walaal ninkan noo sidaay wallahi wax cid garanaysa ma jirto waa suuqa la soo saaray nin walba waa la soo saaray kulli intii aan meesha isugu nimid la isugu kaana keenay dharkaaga qaadaa la yiri nin walba iska bax wax kale noo leeyahay ma jirto iyagu waxay rabeen in waqti loogu daro 3 maalmood ah xaakinkii maxkamadda ayaa wuxuu yiri ninkan wax hadda aan dhihi karo 3 maalmood loogu sii daro ma jirto saasaan ii soo daayay dadka Soomaaliyeed ee iyagu loo qabtay falalkan argagixisnimada la xiriira ayaa markii hore waxa ay hayeen 12 qof oo Soomaaliyeed waxaana imika banaanka ka jooga 11 oo dib u helay xorriyadoodii halka uu mid wali baaqi ku yahay xabsiga kaasi oo loo haysto arrimo la xiriira in uu socdaal ku tagay wadanka Yemen isla markaana halka tababar ku soo qaatay waa kan abukaataha qofkaasi Soomaaliyeed oo isaguna goobtaas aan kula kulanay wax ka weydiiyay arintaasi. Echte bewijzen zijn er niet. Het is een redelijk vermoeden, zegt de wet dan. Er is een tip binnengekomen bij de AIVD dat er een terreuraanslag zou plaatsvinden in Nederland rond kerst. Nou, daarbij is de naam van mijn cliënt genoemd en het komt er eigenlijk op neer dat hij een keer in Jemen geweest zou zijn en dat hij mogelijk bij een trainingskamp heeft gezeten, maar dat is helemaal niet het geval. Hij was op familiebezoek, hij is gewoon naar Jemen gegaan, zijn oma zat daar en zijn broer. En dat kan die heel erg aannemelijk maken. Dus dhinaca kale shirkana waxa iyagana ka hadlay qaar ka mid ah horjoogayaasha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka wadanka Netherland oo kuwaas oo dadkii goobtaasi ku sugnaa kula dardaarmay in midnimada Soomaaliyeed looga bixi karo falalka noocan oo kala ah iyo kuwa ka daran oo laga filan karo hadii dadka Soomaaliyeed ay ku sii jiraan tafaraaruq imika u dhaxeeya wiilasha 12 ka waxaan kula dardaarmay wiilasha laga jajabiyay dukaamadooda waxaan kula dardaarmay kuwa guriyada laga burburiyo waxaan kula dardaarmay kan idin la dhashay Allah idin ka dhigay kuwa raba inay Soomaalinimada iyagoo ka diiday magaca Soomaaliyeed rabo inay wanaag u diidaan hoosteedii ka soo galaan jaanis hasiinina waxaan Soomaaliya isku jirtaan ku weeyno wallahi aanan hebel iyo hebel ayuu maanta aan u jeedaa inaan meel geey doono ku heli maysiin yaa la idin ku dirin dadka Soomaaliya midooda oo isku duubnaada falxumada iska daaya
ka ciyaal suuqa ah iyo ka wadaadka ah waynu meel ka soo wada jeesanaa keena xun waynaynu soo jiidanaa ka nolosha ka dhacay waynu soo jiidanaa dad Soomaaliyeed baynu nahay calankeenii dalkeenii ciideennii inagaa cunnay maaha halkan inaynu iska sumaacadda iska dullo oo dowladda ina qaabishay ee ilaahay inoo khasbay waa inaynu sharafteeda ilaalinaa oo inagana sharafteena ilaalinaa muhiimadda hadda maanta noogu muhiimsan waxay tahay haddaan Soomaali nahay ninkan walaalkeena weli naga xiran horta inuu banaanka yimaado markaas wadada kale oo ku furan waxay tahay in aan dib u eegno processkii la soo maray oo ah dadkan la xiray maxaa lagu xiray maxayse mutaysteen markii taas ay miiska timaado oo wixii noo cad yihiin waxa dadkeena lagu soo qabtay iyo waxa ka soo baxay markaas ayaan bilaabaynaa dacwadda ah muxuu ugu gidisan yahay shakhsiga Soomaaliga gurigiisa lagala soo baxay iyo ninka jaarkiisa ah Cabdiwali Ibrahim Garyare Universal TV Rotterdam Netherlands